حد بيسيتا أنا أركو عبد حكين أو كم إذا جن عستدا دادير هيرج لينا مشروع مرة البنك هذا حول رقة بير الليلة أنت بدنا برشة إنه حلو ذا جاه حول أنا عن ليه هاي أسوق قصة قضاء والسيق قضاء يا حول دتك إليهم بقى لكن ما أنت تصالح عد أو إيديها هي وحوي إن عبد حكين وحول $60 هذا سوق قضاء هذا نكذب والسيق قضاء تصالحها ونجوا رمية يسود أوقف فائدة عبد الحكيم سوي الشيء وحيقول فكرة داسي سام الدب أنا كود بجوجي بان هيرجلي مشروعي نواق قلست رجسوري وفرعات بيت عبد الحكيم horta waa dhawa hay tiktor kusoo dhawarta magaalada Burco waxaan kugu soo dhaweynaa magaalo xadaaradeeda iyo dhaqankeeda iyo lacagteeda ay ka bilaabmato xoolo dhaqashada magaalada dadkeeda ugu hantida badnaa ay ahaayeen dad xoolaha ka ganacsan jiray bariga hore dadkeedan dambe imika ay ku baraarugeen in xoolo dhaqdaan waxaan qabaa inaan noqon doono dadka ugu badan ee xoolaha dhoofiya marka waxa soo beeraa la xiro beero badan imika waa la xiray oo dadku ay calafkii ay sugayaan xoolihiina ay iibsanayaan markay calafkii ay helaan xoolahan horta xooluhu marka waxaan ahaa beeralayda caadiga ah kaabashka iyo saladka iyo kamsara iyo xabeeri jitana kaashka roobka nin waxyaabahaas waxa laga yaabaa inay siisan kala yihiin hada jarna sunta waddankeena timaada sun fiican maaha oo sunta waddanka timaada dhirtina way ka dilaysaa geedkina way ka dilaysaa waxa laga yaabaa adigoo sanadka wax beerayay oo marka warsax ku go'aan inaad sun ku buufiso cusub suntii ay waxba qaadataba waxba bis laakiin calafku waxyaabo kaga duwaya waxa kamid ah sun lagu buufin maayo biyuun baa la siinay biyihina u yaraysanaya waa talabaad boqol neefas iibsanaysaa soo darbo soo sinaysaa ilaa shan darbo soo sinaysaa hadhow toona $100 ilaa $120 ilaa $60 ayaa sii siinaysaa wixii aad sanadka beerta ka faa'iidi lahayd ayaad hal mar helaysaa laakiin xoolahaasi saa sheegtay waxay tiri $60 baa ka soo baxshay markii dambe waxa ku bixisay intee weey ninka doorkii dhawto kale $120 sababta say badan yihiin waa 85 ilaa $120 laakiin doorkii dhawto le waxaana filanay baan aragnay xoolihii waxa la siinay $250 $250 ها على النيف waxaan ka faa'iiday $250 baa ka faa'iiday neefkaasna intee kugu fadhiyay lacag ah $100 intee bilood haysay walibana $100 marka igu fadhiyay qofka shaqaalaha ah ee la joogay mushaarkiisa markan uu xisaabiyay على النيف waxaan ka faa'iiday $210 baa ka faa'iiday oo intee bilood haysay xalaas waxaan adigu 3 bilood baa haysay calafkoodii cunada oo faa'iidays calafkoodii iyo cunadoodii ay ma meel u dhigan biyihiina waa kuwan marka waan isku intaas isku geysanay talada ugu wanaagsan ee bulshada aad siinaysin ugu dambaysa oo daawan doonta fiidiyoogani muxuu noqon doonaa hortay waxa la yiri ganacsigu waa sir linkana sir ma kana sir ku ay ma ku sheegay magaaladan joognay marka waxa loo baahan maalin walba waxa loo baahan 200 neef ilaa 1500 neef loo baahan maalin walba ila cuno 1500 neef qofka ma saari karo waa market size aad u balaaran qof walba ku shaqeysan karo anigu waxaan leeyahay dadka dhalinyarada ah waliba 10 qof lacag isku geeyay hiiga samaysta calafkina uu jaban yahay hektarka dhan waxa laga yaabaa in laga siiyo $300 $400 laga siiyo laga yaabo oo waliba 7 sanaad goosanayso intaad beerataan dabeetana lacagta sugaw walibana imika meel aan ku tusi doono tiktore 7 qof aan ku wada leenahay riigii wuxuu aan ka sameeynaa marka waa maalgashi dad badan deeqi kara وانا ماركت سيس ادو بلارن كل دوفينس كده كو مغالده كليه lagu cunaayo ayaan cid kaliya soo saari karin marka waa soo cid walba ku filan marka waxaan leeyahay beeraha hala ma qashto xoolahana hala ma qashto aad waa ma saddex xakiin adam